لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. مقعي وياسين محمود عبار. hadda waxaan nahay CEO-ga ama madaxa ugu sarreeya fulinta ururka bankiyada Soomaaliyeed ee Somali Bankers Association. Ururka oo hadda ay ku mideysan yihiin 13 banki oo Soomaaliyeed oo dhammaantoodba ah banki Islaami ah. waxaan aad ugu faraxsanahay horta inaan ka tirsanahay bahda jaamacadda Muqdisho. alumni guud inaan ka tirsanahay aadan ugu faraxsanahay. waxaan ahaa jaamacadda Muqdisho waxaan ku soo biiray 2004 sanadkaasaan ku soo biiray. mararka qaar markaan fiiriyo it's a long time, waqti dheer waayo, but still inay waqtigii aad u dhowdaan arjayna. waxaa jirta xilliga aan ku soo biiray jaamacaddu wuxuu ku shaqeynaysay campus ku yaala agagaarkan Tarabuunka ku yaala ku shaqeynaysay. kadib within 2 years waxaan u wareegnay campuska weynka ee jaamacadda ee leedahay ee ku yaala Yaaqshiid ku yaala. campuskaas oo si casri u dhisnay oo ahay campus aad u qurux badan oo aan la mid ahayn macnaha waxa dhismayaalka magaalada ka jiray aad u maaragtay high quality campus ahaa. jaamacadda waxyaabo tiro badan oo aan ku xasuusto aad jira xilligii aan arday ka ahaa. waxaa jira kulliyadda aan baranayo oo ahayd kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka, especially qaybta economics-ka ee dhaqaalaha oo aan ka soo baxay. waxaan nasiib u yeelan inaan helno macallimiin aad iyo aad maaragtay oo khibrad badan u leh. waxaa ka mid ah xilligeena inay macallimiin internationals ay joogeen, macallimiin Hindiya ka timid, qaarkood ka yimid Kenya ka yimid, qaarkood Uganda ka yimid, macallimiin kala duwan oo meelo kale ka duwan, iyo macallimiin Soomaali ah oo khibrad aad u weyn leh oo kulliyadii dhaqaalaha ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed soo maamuli jiray, qaar dhiin ka ahaay oo mataqaan madax ka ahaay. marka jaamacadda waxaan is leeyahay barbaarintii koowaad bay maaragtay nolosha wax badan ay maaragtay iga tartay aniga naftirkeyga. macallimiinta iyo dadkii aan la soo falgalana wax badan aan ka bartay nolosheyda. jaamacadda campuskaas aan ku dhammaysanay campuska kumaana dhammaysanin runtii because semesterkii u dambeeyey waxaan ku dhammaysanay xogaa waddanka qalalaas oo galay 2007-2008 waa aad u qalalaas u gala dagaalo badanaa ka dhacay magaalada. waa markii aad loogu kala cararay marka way noo suurtageli weysay xataa campuska inaan ku dhammaysano. marka waxaan ku dhammaysanay Taleex aan ku dhammaysanay. waxaan xasuustaa waxaan ku dhammaysanay meesha quruxda badneed oo campuskii jaamacadda lahayd loogu talagalay, fasalladii waaweynka badnaay, facilitieska jira. intaan kasoo tagnay 2007-2008 waxaan ku dhammaysanay jaamacadda filan ku dhammaysanay because markaas xaaladda ku haysa in wax kasta. marka maamulka jaamacadda aadan uga mahadcelinaa inay ka go'need inay noo dhammaystiraan waxbarashada. aadan uga mahadcelinaa ilaa haddana maaragtay mahadii iyo celintii bogaadintii anytime meel kastaan tagana waa ka sheegaa. waxaan dhahaa jaamacadda iyo kaalintii ka geysatay nolosheyda iyo maaragtay socodkeyga. jaamacadda markii aan dhameeyey waan shaqeeyey, shaqaan bilaabay hay-adaha oo waxaan ka shaqeeyey ka mid yihiin hay-adaha gargaarka. waxaan ka mid ahaa dadkii aasaasay programkii tabarucaadda ugu weyn ee Soomaaliya laga sameeyo ee Aamin Ambulance 2007-2008 jaamacadda markaa dhammeynaba. then waa ka shaqeeyey, shaqo fiican aan ka qabanay anagoo la kaashanayna hay-adda culimmada oda dhaqameedyadii wixii dhan. sababta keenaysa inaan gurmadka degdega sameynana waxay ahayd waddanka oo aan u arkayno markaa xaalad aad u cakayno ku jiro, facilitiesna aysan ka jirinba oo ambulance iyo waxyaabahaas aysan ka jirinin. marka from there laga soo bilaabo waxaan ku guda jiray arrimaha bini'aadanimada iyo inaan ka shaqeeyo iyo horumarinta maaragtay dad human development inaan ka shaqeeyo. waxaan rabaa marka inaan meeshaas aan ka tusaaleeyo kale. waxaan tegay Malaysia dhammaadkii 2009. jaamacadda waxaan ku biiray liiraa International Islamic University Malaysia. jaamacad liiraa ku biiray. jaamacaddu marka waxay leedahay program u dhigma IELTS-ka Englishka ama u dhigma TOEFL-ka u dhigma leedahay aad u dhib badan. marka dad badan oo Soomaali oo meesha joogo jaamacadda Soomaaliya ka baxay iyo wadamada Carabta ka meelo kale ka yimid oo waxaa jira luqadda Englishka aad ugu dhibnaa.
marka jaamacadda Tora liisoo sameeyey Torka marka liisoo sameeyey dhalinyaro meel ku sheekaysanaysa nimid markaan isbaranay waxaan u sheegay inaan Muqdisho ka imid jaamacadda Muqdisho aan ka soo baxay waxyaabihii ugu qosolka badnaa waxaa kamid ah waxay ii dhaheen qaarkood in jaamacadda Muqdisho ka soo baxday jaamacad af Carabi lagu barto waaye dee nagu soo biir luqad Ingiriis ah baran doontaa labada sano ugu horeysaba luqadda Ingiriiska nagu soo biir inaan baro marka meel Selbad la dhaho dadkii ka soo baxay International Islamic University ugu yaqaanaan ay dhaheen waa nagu soo biiraysaa marka waxaan idinimay aan jaamacadda Muqdisho ka soo baxay laakiin imtixaanka ay sheegayseen English haduu yahay I'm sure aniga waa inaan waa gudbaa iri marka waa aad la igu qoslay way qariibsadeen macnaha inaan kalsooni noocaas camal ay ugu jirto laakiin laba maalin kadib imtixaankaan galay imtixaanka markaa galay way wareysteen haddana waxay dhaheen imtixaanka soo ahaa waxaa irniyo imtixaankaan soo galay ma ka hadlaysiin mise imtixaan kale marka imtixaankaas naftirkiisa aan ka hadlaynaa ay dhaheen dadka dhan saanay u bootayaan ay dhaheen laakiin waxaa la iska rabay wax xasuustaa 5.5 ah la iska rabay aniga waxaan helay marka 7.5 aan helay dee nimanka markaan usoo laabtay waagaa isla markiiba magacayga inkastoo ay macallin Yaasiin markii hore la dhahayay then automatically waxay dhaheen macallin Yaasiin tahay waa noo gambatay luqadda Ingiriiska adimaa dhigi jiray intay ka soo barat waxay I'm product jaamacadda Muqdisho nahay af Carabigiina waxbaan ka aqaanaa Ingiriisna maaragtay waa aqaanaa marka waxyaabaha aan ku xasuusto jaamacadda ay kamid tahay qofku inuu asoo iswado oo mataqaan maxaa leeyahay wax isbaro hogaamiyo si kastoo mataqaan lagu dadaalayo haddana motivation-ka hadaan adiga aadan helin waa dhib waaye marka jaamacadda waxyaabo aad u tiro badan oo aan isleeyahay nolosheyda ay saameeyeen markii aan ku biirana programmingkii oo takhasuskii masterka aan diyaarinayay program thesis aan qaatay in research aan sameynayo it was very great macallimiinta aan la shaqeynayay dhammaan maaragtay aad iyo aad aan u wada shaqeynay wax productivity fiican aan ka soo baxay taasoo kor u qaadaysa xataa dadka ka soo baxa jaamacadda Muqdisho iyo jaamacadaha Soomaaliya in quality dad leh ay soo baxayaan meelaha jaamacadaha caalamiga hadday tagaan si fiican looga soo dhaweynayo contribution ka geysan kara marka waxaan isleeyahay dhankayga waxbarashada iyo halkaas ay ahayd jaamacadda Muqdisho oo ah jaamacadaha oo jaamacad ugu faca weyn aan isleeyahay because of wax dad ay soo saartay oo hadda systemka ku jira for example ha ka shaqeeyaan cadaaladda ha ka shaqeeyaan dawladda ha ka shaqeeyaan private sector ha ka shaqeeyaan oo hay'adaha gaarka loo leeyahay ha ka shaqeeyaan bangiyada ha ka shaqeeyaan meel kasta tagtid waxa arkaysaa alumni jaamacadda Muqdisho arkaysaa waana very scattered qofka marka ayaan isbaratiinaad waxa ka maqlaysaa kaliya waa niyo aniga bahda jaamacadda Muqdisho kamid ahay then farxad ay ku gelinaysaa ardayda ka soo baxda marka jaamacadda Muqdisho saameyn xoog leh ku leeyahay suuqa shaqada aad loo qaataa kulliyado kala duwan ay ka soo baxay la qaataa systemyo badan ay hogaaminayaan way jiraanba oo ay u badan yihiin dadka ka soo baxa jaamacadda Muqdisho ka soo baxa marka waxaan isleeyahay congratulations dadka jaamacadda Muqdisho ka soo baxa laakiin personal development qofku asagu inuu ismaal geliyo jaamacadda ka soo bax laakiin inaad maalgelintii isku wado tababarra aad qaadato ishormariso luqadaha aad barato waxa waaye wax badan marka jaamacadduna way ku dhiirigelisaa waa ogaay dadku inay sii wadaan development-ga ay sii wadaan maxaa yeelay waxa kaliya aan istaagaynin horumarka waa qofka marka the more uu sii horumariyo the better fursadihiisana way badnaanayaan